habeen ayuu wuxuu ku fakiray oo maalmo dhangagediyay inuu walaashiis xiriir la sameeyo oo isguursadaan. walaashiisna waxay tiri maalintii walaalkay afkiisa ka soo baxay hadalkaasi maalin iiga xanuun badneed ma jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan wanaagsan ku soo dhawaada channelka Xamda Home Decor. maanta waxaan inii wada muuqaal cusub oo channelkan aan ka bilaabi doono insha Allah barnaamij cusub oo ku soo kordhiyay channelkayga. soo dhawaad koob shaax sokor la'aan soo qaad muuqaalkan like-tiisa noo saar subscribe. maanta waxaan soo arkay qiso aad iyo aad iga yaabisay oo na aaminsanay in adduunyada aan ku noolna ka dhici karto, laakiin qisadii ayaan rabaa maanta inaan la wadaago inii soo daayo insha Allah tacaala. ha iga degdegin, soo fariista muuqaalkan like-tiisa noo saar subscribe noo saar. qisadani waxay ka dhacday dalka Congo, waxayna dhex martay wiil iyo walaashiis. waxaa jira wiil iyo gabar dhashay oo xilligii dagaalii Congo hareeyay ee aadka kumanaanka qof ku baaba'een ka dhacay qayb ka noqday. waxay ahaayeen family aad u ballaaran, laakiin familigoodii ayay waxay ku waayeen dagaalkii xilligaas jiray ee ka dhacay Congo. meel u baxsaday markuu waayay dagaalkii tuuladoodii oo hareeyay ayuu wuxuu gacanta qabsaday walaashiis oo da'di ku xigta asaga iyo walaashiis ayaa wada fakaday, way israaceen. waxay muddo dheer hayaamaanba waxay tageen magaalo aan ahayn magaaladii ay ku dhasheen iyo nawaaxigeeda. waxay la kulmeen oday u dhashay Congo ama qof duq waayeela oo reer Congo odagii ayaa barbaariyay. xilligaas waqtigaas aad u yaraayeen wiilkan iyo gabar nin yaraan ma galo. walaashiis wuu xanaaneeyay, gacanta ayuu qabsaday. familigii u tageen oo cusbaa oo hal aabbo ka koobnay oo waayeel ayay la midoobeen. muddo dheer markay la joogeen ee meesha ku heshanayeen, laakiin markaste uu ku taalo iyo walwal ay ka qabeen meesha ay jiraan familigoodii ay ka dhasheen iyo qabiilka ay ka soo jeedeen markaas oo gobolkii fogaay oo ka yimaadeen deganaa. way weynaadeen, dad waaweyn ayay noqdeen. diihaalka iyo dhibaatooyinka dagaalka ayaa wali socday. dagaalkii markuu dhamaaday ayaguna ay noqdeen dad xilliga soo weynaaday oo qaan gaaray. ayuu wiilkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu walaashiis uga sii tago magaalada ay xilligaas ku nooleed, dibna ugu noqdo magaaladoodii hore ee dagaalku hareeyay si uu u soo helo raad ama wax uu raad raaca oo familigiisa intiisa kale uu ku heli karo. nasiib darro magaaladii ayuu tagay. wuxuu muddo hayaamo, laakiin waxna wuu ka soo heli waayay maadaama aad u yaraa. magaaladii ay baaba'day, dagaalka uu aad u baabi'iyay magaaladii. qof uu yaqaano ama guriga ku dhashay midna wuu soo heli waayay. muddo markuu meesha ku maqnaay, walaashiisna ay la sii joogtay, waayeelkii korsaday ayuu wuxuu dib ugu soo noqday magaaladii ay dagaalku geeyay ee ay ku soo koreen iyo ninkii waayeelka ahaa. muddo markay meesha ku sii noolaadeen, markastana waxa uu ku taalo ku ahay familigooda dabar go'ay iyo asaga iyo walaashiis inaysan marnaba kala fogaanin. maxaa dhacay? waxaa dhacay wax maskaxdaada aan geli karinin. habeen ayuu wuxuu ku fakiray oo maalmo dhangagediyay inuu walaashiis xiriir la sameeyo oo isguursadaan, isweheshadaan sidii aysan u kala dheeraanin, familigiisana uusan u dabar go'in, aysan halkaas ugu dhamaanin. walaashiis ayuu ula yimid, waana uu ku qanciyay. walaashiisna waxay tiri maalintii walaalkay afkiisa ka soo baxay hadalkaasi maalin iiga xanuun badneed ma jirto. aad ayaan uga qaracmay, aad ayaan u walwalay, waa isku buuqa, waa fakiray. laakiin waxaan is iraahday maadaama dagaal iyo dhibaatooyin badan aan soo marnay, walaalkaa waa uu waashay oo maskaxda ayuu ka xanuunsan yahay. muddo 2 bilood ayaa arrinka fakarayay, ka laalaabanayay, ka dhuudhuubanayay. walaalkayna wuxuu ahaa mid xilli kaste igu yimaado xoolaha aan raacayno ama meesha aan degan ama xilligaas meesha aan joogo igala hadla arrinkaas, iguna qanciyo inaan isguursano oo ilaaliyo oo na kala fogaanin familigeena ee sidaas ku dabar go'inin. alxamdulillah inaan muslim nahay, diinteenu aad iyo aad ay u macaantahay. waxyaalahaas waan uga fakanaa inta badan diinteena ayaa keenaysa inaan ka baaqsano. haddaba gabadhii way ogolaatay 2 bil ka bacdina walaalkiis guursadaan. walaalkiina wuxuu gabadhii ku qanciyay inay hayaami doonaan, ay mar labaad haajiri doonaan, ay tagi doonaan magaalo Congo, isla Congo kamida, laakiin aanan laga aqoonin ayaga. cidnana uusan la wadaagi doonin, una sheegi doonin inay labadoodu yihiin 2 qof oo walaala oo hooyo iyo aabba wada dhaleen, laakiin ay bulshadu arki doonaan xaas iyo ninkeeda labadooda kaliyana is og yihiin. way hayaameen, magaaladii ayay tageen. ilaahay subxaanahu qaadir yahay wuxuu ku risaaqay 4 caruura. maanta waxaa u jooga familigaas caruur, waana nin iyo xaaskiisa. mar ay gabadhu wareysi dhiibaysana waxay ku sheegtay inay meeshii ka baxday walaaltinimadii ee booska ay soo gashay xaas, maantana ay yihiin nin iyo xaaskiisa. asaguna wuxuu ka dhawaajiyay markuu ubadkiisa arko inuu dareemo farxad aad iyo aad u badan, ayna tahay go'aanka uu qaatay go'aanka ugu fiicnay abadiin intii uu noolaa.
haddaba faamiligaana caruur ayay dhaleen 4 ciyaal ayay leeyihiin caruurtoodana way soo korayaan waxa walba aan ku hayso oo fakar dheer u galay sidoo caruurtiisa uga dhaadhacsii lahay inaysan ahayn kaliya xaas iyo ninkeedii ay yihiin laba wada dhalatay ee hooyo iyo aab wada dhashay laakiin wuxuu sheegay inay xilligan la taagan yahay isku habooneen xilligu caruurtiisa yaryar u sheegi lahay inay xaaskiisa tahay walaashiis laakiin ay ma doonto maalin ku haboon iyo waqti iyo xilli uu u sheegi doono inay xaaskiisa tahay ay xaaskiisa walaasha dhalatay ay tahay iyo sidee waxa u dhaceen hadda waxay baadi goob ugu jiraa inay helaan faamiligoodii inkastoo dhan kale markii loo fiiriyana ay farxad dareemayaan aaminsan yihiin in faamiligoodi uusan dabargo'inin ee ayagu ay sii tarmeen isna guursadeen isna haystaan waa su'aal ninkaan walaashiisna wuxuu u guursaday inaysan walaashiis ka fogaanin oo ilaaliyo mase wuxuu u guursaday inay faamiligiisu tarmaan aysan faamiligiisu dabargo'in waa qiso aad iyo aad ilayaa badan waa inii soo daadinkan wixii fikir comment ku soo qora muuqaalada noocaan ah dad rabtiin waa inii soo badinaya muuqaalkan leegtiisa sii saar insha Allah channelkan subscribe noo dhaha waxaan ilaahay uga ku xamdinaya alxamdulillah muslim nahay waxyaalahaasna aysan naga suurtaabin soo dhawaada